السلام الله عليكم أصحابتيدا مانتي ومالنتي جنبلدا كرباشكا تو براعة ووريدا وبرنامجكي توب 5 شنتي هي سودي أسبوعي لا soo dhaafay ugu saameynta badnaa barnaamij ku qanciyo qurux badan waa iga diyaar adigana comment qurux badan like iyo waliba subscribe aan barnaamijkii ugu galin maadaama shalay barnaamijkii aragtay dadweynaha aan idin soo dhigay waxaa jira mar walba dhexgalis baa leeyihiin moogta asbuuca markuu aragtay dadweynaha uu baxo dhexgalis baa leeyihiin marka dhexgaliskaas laba soo kala doorta mashalalka telefoonada idin kaga dhigaa mise waxaan ku yiri kamera wixii ku soo maray iyo barnaamijkii part 2giisa sawiradii baa idin kaga dhigaa mise shilalka telefoonada party ugu dambeeyay baa idin kaga dhigaa shilalka telefoonada ama kamera wixii ku soo maray labadaas barnaamij ka u codeysaan baa idin soo diyaarin doona laba bil saddex bil kadib waayahay waxaan rabaa maanta heesiya asbuucan u saameynta badnaa inaan gudaha u galo shantii heesood mubaarak October ilaahay ma taqaanaa adiga maanta total mintu waa ganaaxanta sababta ma taqaan asbuucii horena farxiifisko kaliya hees qaadaysantaan halkan keenay oo barnaamijka ku soo qaatay baan irniyo nikime hees ma shambiri koor miya mise hal isbuuc koorna hees baa kaliya soo qaaday haddana adoo Yurub geeyo wataad ii timid niyo anigu filinkaaga uma bogin kowdhe waa ganaaxanta adiga horta barbanaanka iga bax mubaaragow meeshaan kugu aqaanay waa ka leexatay wadadan kugu aqaanay barbanaanka ku bax waayahay mubaarak October waa ganaaxaya waayahay shanta heesood ee maanta ay idin soo xulay ee another level ka ah go waxaan horta waxba laga qaban karin ninkii qamar suugaani ahaa waa waray oo qoftii habi ahayd ee tiktokerada ahayd soo waa adkaaga xabibta badan markuni dayda xulo waa ka qamar suugaani wixii ku toortay jacaylka hasuuska afaarahan hadaa joojis afaarahan oo nooc macna shiineeska hadaa joojis taageerayaasha waa baabeen anaga waxa aan kugu taageerno hasuuska alaabtaas qalbiga uga yeel xafiis oo mideeda kale qoftii habi ahayd qaabka la isu fiirinayo romantiga indhaha qaabka yaa wala inna jecel baa meesha iga muuqda warqamar suugaani waxa ku qoftiisa magaceeda muxuu ahaa ma la miishin gareyn karaa YouTube qof ma laga dhex miishin gareyn karaa ii miishin gareey qoftii qamar suugaani uu qabay jacaylka xuskiisa dhawd xanaane sida dalaha heestaas inay diyaarsanayd qamar suugaani sanadkan maanta waa baashaalay inta barnaamij ee heesiisa tobtaan ku soo qaatay wala cadad wala xisaab qamar suugaani qaybta aan u soo xushay waa qaybta activity-ga maadaama uu gabar caana oo tiktokerada habi halkaan ka salaamaya walaashay markii kaftanka laga yimaado uu soo kaxaystay oo heesta ay jilitaan iyo acting in lahayd oo gabadhaas iyo laba qof oo caan dhalaya ay collaboration sameeyeen waxaan leeyahay qaybta activity-ga best collaboration oo ahaa macnaha activity-ga qamar suugaani iyo habi waa iga haysaan heesta labaad waa another level waa maslax mideeye waa waree arniyahow ninkaas aniga imaamadiisa ma haysto asoo ayadee ayo anagu ogeyn oo asbuucana xabad kale qac ka soo siiyay horaan kuu sheegay maslaxo waa seexana ku waqtigaaga ku jirtaa heestan qaabka aan u xushay ama waxa aan ku soo xushaa wax kale ma ahayn waa fiidiyowga hees ka fiidiyo qurux badan waxaan u maleynayaa alleelay wisbi iyo asaga la kala dooran karin waxay ahayd heesaha ugu muuqaalka qurxoon bay ahayd maslax mideeye waxaan ku leeyahay waa kaa hayaa muddo bil ah gudahood heestii labaad waa kaa hayaa backgroundka qaabka aan u design garaystay waa iga gadan yahay waa ku salaamayaa la janow waayahay aan u gudbo bal heesta saddexaad heesta wisbi qaybta muuqaalka aad buu u fiicnaa oo muuqaalkiisa weligiisba waa diyaarsanaan jiray laakiin asbuuca waxaan u soo xushay oo aan top 5 ugu soo daray heesta jilnin bilay acting muuqaalka markuu bilaabanayo
military iyo weero iyo rag saxaraha jooga rag macnaha waxay lahayd acting bay lahayd ama qayb yar oo mataqaanaa short mataqaanaa dadka maskaxdooda lagu mashquulinayo bay lahayd oo hordhac ah waa mid kamid ah fikradaha loo baahan yahay heesaha Soomaalida inay qayb kamid ah jilid ama acting hordhac lahaadaan anta igu abtirso iga dabaqayli hubka ana soo galiya magaalka waxaan leeyahay Wisbi waa ka haya brotherkii mar dhow Wisbi wuxuu imaan rabaa dhankaas Europe waxaan ogaa inuu show u dhagan yahay dhawaan uu Jarmalka tagi doono reer Germany Wisbi ha loo diyaar garoobo heesta afraadi ay idin soo xulay waa qoftii ahayd Najma Nashaad sanadkan xilli ciyaareed fiican bay qaadatay awood bay soo bandhigtay markaan waa hees ay kaligeed qaadayso laakiinse heestaas macnaha dhanka haddii la dhaho laxanka hees ka laxan diyaarsanayd ama ka laxan fiicnayd aniga asbuucan ishayda ma qaban ishan kula raacaya agtaadan joogaya naftan meesha ay ku duubayso war meeshaas magaceeda committee hal igu soo qoro meel saas u diyaarsan waa meelaha loogu talagalay heesaha internationalka xataa qaabkaas oo kale loo duubaa backgroundada ama designka noocaas oo kala ah 100% waxyaala loo baahan yahay la ubaxbaan ku beeraya aroos baan dhiganayna Najma Nashaad waa ku salaamaya heestaadi waa soo gaartay dabcan shantii heesoodii asbuucan aan u soo xulaybayna koow ka ahayd aadan ku salaamaya sharafi karaam waa yahay tan ugu dambeysay aan idin hayo ama heesta ugu dambeysay idin soo qabanayo waa Malyuun Maag iyo ninkii 10 la ahaa xanuuniyadayda xaqiiqina bargaaray naftaydu jacaylka sidii jin u haraha jacaylka romantiga talantaaliga qori isku dhiibka macaano nolosheedii asbuucan heestaana ku wadatay inkastoo aan arkay Hodan Cabdiraxmaan iyo Maxamed iyo Amin Yare oo ayagana hees soo qaaday laas labada heesood markii aan qiimeeyay heestaana xagga talantaaliga iyo afaar romantiga iyo indhaha jacaylka tan soo xushay macnaha noona casriita nintaaqa igarshi ina noloshayda Malyuun Maag iyo 10 le waa idinka hayaa heestaa soo saarteen laxankeeda iyo musiceeda iyo waliba muuqaalkeedana waa diyaarsanaa qaabka jawiga degan ah ee mataqaanaa heesta talantaaliga iyo ereyada la isku aadiyay iyo indhaha jacayl naamtu billahi inan kulanugu neexawda jacaylka boqolkiiba boqol waa idinka fuqay cimaamadiina ma haysto Malyuun Maag iyo Maxamed Tobalana waa salaamaya waa yahay barnaamijkii aan ku fiirin jiray shantii heesoodii asbuucii la soo dhaafay macnaha saameynta lahaa trendedka ahaa intaasaan kusoo gabagabeynayaa barnaamij ku qanciyo oo qurux badan waa iga diyaar adigana comment qurux badan like iyo waliba subscribe